shirweynaha qiimaynta iyo waxqabadka maxkamadaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka furmay magaalada Jigjiga. Shirweynahan oo ka soo qayb galeen afhayeen ku-xigeenka baarlamaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Xasan, mas'uuliyiinta maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida, hoggaan ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida, mas'uuliyiin kale oo heer deegaan, hay'adaha garsoorka deegaanka iyo waliba sidoo kale marshal kale. Shirweynaha qiimaynta iyo waxqabadka ayaa ah mid lagu eegayo warbixinta sanadlaha taasoo sanadkiiba mar la qabto. Afhayeen ku-xigeenka deegaanka Mudane Ibrahim Xasan ayaa sheegay in xoogga la saar dhisidda hannaan garsoor oo kasbada kalsoonida shacabka. ugu horeyn kulley deegaankeen wax badan buu soo maray. hay'adaha garsoorku waa tiirka saddexaad ee dowladda. garsoorka deegaankeenu waxyaabuu shalay soo maray sooyaalkiis markii la eego wax badan buu soo maray. isbeddelka ka hor garsoorka waxaa laga rabay inuu garsoore u noqdo bulshada deegaanka oo dhan oo si cadaaladda waxyaabaha cadaalad u baahan yihiin oo dhan oo maxkamadaha lagu soo doontay inay garsooreyaal u noqdaan. iyadoo ay sidaa ay tahay hay-adda waxay noqotay isbeddelka ka hor hay-adda dhibaatooyin badan la soo daristay oo la gacan bidixeeyey oo faragelin kala duwan lagu samayn jiray oo meeshuu garsoorku cadaalad u ahaa in tilmaamo cad oo maaragtay lagu bixin jiray oo hay-adda lagu faragelin jiray. taana waxay keentay in bulshadeenna kalsoonidii ay lahaayeen hoos u dhacdo oo garsoorkii shalay cadaaladda laga rabay meesha cadaaladda laga rabayna oo ay noqotay meel maaragtay cadaaladda lagu dhaawaco. taana waxay keentay in hoos u dhac kalsooni ay timaado. marka dhibaatooyinka sooyaalka maaragtay hay-addan ay soo martay see looga baxi karaa faragelintii shalay lagu jiray oo tilmaamaha la bixin jiray qofkii meeshuu cadaalad ka soo doonto oo cadaalad darradu ay ku dhaci jirtay. kulley isbeddelka kadib waxyaabaha la sameeyey hay-adaha garsoorka in faragelintii shalay ay jirtay hay-addu u madax bannaanaato shaqadeeda ee garsoorka. taana waxay keenaysaa hoggaaminta ugu sarreysa deegaanka oo faragelintii shalay ay jirtay inay hay-adda u madax bannayso, hay-adda xil iyo waajibaad ka saaran inay gudato. waxyaabaha ay u baahan tahay oo kalena la garab istaagto ayay hoggaaminteena maanta ay ku dadaashay. mudanayaal iyo marwooyin, garsooreyaasha iyo hoggaaminta hay-adahan oo halkaa fadhiya haddii loo madax banneeyey shaqada garsoorka inuu xil iyo waajibaadkiisa u guto, garsoorkana kalsoonidii shalay bulshadeenna dhaawaca ku dhacay oo qaabkii maaragtay hannaanka lagu hagayay garsoorka dhibaatooyinka ku yimid qaabkii looga baxi lahaa, maadaama hoggaaminta juxa ay ka soo saartay in shacabkeenna cadaalad lagu hoggaamiyo, garsoorkuna uu noqdo meesha cadaaladda laga soo doonto, inaan adkayno. taana dowlad ahaan kolley jihooyinka la qaatay in isbeddel lagu sameeyo hay-adaha garsoorka. geesiisa gudoomiyaha maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cali Baaruud Sheekh Axmed ayaa sheegay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay jirtay isbeddello dhinacyo badan taabanaysa dhanka garsoorka. maxkamaduhu sidaad ogtihiin ama hay-adda garsoorka waa tiirka saddexaad ee dowladda ee dhinac kale marka laga eego kan ugu muhiimsan, sababtoo waa meesha keliya ee lagu xaqiijiyo sharcigu inuu shaqeeyo, dowladnimadana aasaaska u ah. in sharciga ilaalintiisa iyo sarreynta sharciga la xaqiijiyo waxaa astaan u ah ama laga dheehan karaa maxkamadaha iyo nidaamka u shaqeeyaan. muddooyinka u dambeeyey waxaan culays ka saaray maxkamaduhu inay noqdaan kuwa ku shaqeeya hufnaan, cadcadaan iyo u hoggaansanaanta sharciga oo keliya, kana madax bannaanadaan dhammaan faragelinada kala duwan ee dhinacyada kaga iman jiray.
maxkamado maanta waxaynu haysanaa madax bannaan garsoorku uu qoolan yahay shaqada uu hayo keliya culays meel kale ka yimaada aanu jirin arrintaasina waxay sal u tahay in dadku ay helaan xuquuqdii dastuuriga ahayd ay xaq u lahaayeen maxkamadaha waxay yimaadaa khilaaf kasta oo bulshada dhexdeeda ka dhaca oo xal loogu heli waayo bannaanka waa meesha lagu xaliyo dhibaato kasta waa meesha dadka la isugu keeno waa meesha xuquuqda shakhsiga iyo taguudba lagu xaqiijiyo marka maxkamaduhu maadaama yahayn astaanta sarreynta sharciga ilaalinta xuquuqaadka kala duwan iyo hirgelinta dimuqraadiyadda muhiimadda ay leeyihiin waxaad in badan oo bulshada ka mid a markii la eego way ka ballaaran tahay sida loo yaqaan waa meesha keliya ee damaanad u ah shakhsi kasta oo xadgudub tirsanaya noocu doona ha noqdee marka waxayna saaran dhammaanteen in la ilaaliyo maxkamaduhu inay noqdaan kuwa ku shaqeeya sharciga ka madax bannaanaada faragelin laguna taageero adeeg ay bixinayaan si bulshada ay u hesho adeegii ay xaqa u lahaayeen ee sharciga ku qutumay shirweynaheennan waxyaabahan ku eegayno waxaa weeye guulihii la gaaray sanadkan intaynu geedjacod ku soo jiray maxaa inoo qabsamay u baahan in la sii xoojiyo caqabadahaan la soo kulanay maxay ahaayeen iyo jihada aynu soconaynaa teebay noqonaysaa maxaa laynooga baahan yahay dhinaca qiimeynta waxaa lagu fiirin doonaa kiisaskii la soo qaaday nidaamkii loo qaaday wixii dhibaato ah ka jirtay iyo sida la rabo in loo saxo sanadkan waxaan samaynay kormeer dhammaystiran oo dhammaan maxkamadaha la gaadhay oo lagu soo xaqiijinayay habka kiisaska loo qaado oo aan culayska saaray tayada inaan xaqiijino kiisaska la qaado file auditing ama fileka in la baadho lana xaqiijiyo sharciga inuu waafaqsan yahay nidaamka loo maray iyo in kale culayska ugu badan baan sanadkan saaray dhammaan maxkamadahana waa la gaadhay dhinaca kale suldaan sheekh xasan maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sheegay in 7 sano ee lasoo dhaafay ay wax badan iska beddeleen dhanka adeega garsoorka isla markaana ay u baahan yihiin garsoorayaashu in laga taageero dhanka mushaharka iyo gunadooda